maalin kasta kumanaan qof ayaa u iman jiray meel gaar ah oo ku taala magaalada Taif. waxay la iman jireen hadiyado, waxay qali jireen xoolo, waxayna bari jireen sanam weyn oo la odhan jiray Laata. dadku waxay rumaysnaayeen in Laata uu maqli karo ducadooda, waxay aaminsanaayeen inuu ka qaadi karo dhibaatada haysata, waxayna arkayeen inuu yahay jid ay Alle ugu agdhawaan karaan. laakiin su'aashu waxay ahayd, sidee ayaa dhagax aan nooleyn waxna maqli karin dadka u caawin karaa? tani waa sheekada aas-aaskii sanamyada magaalada Makka. tani waa qisada sanamkii Laata, sanamkii ugu caansanaa dhulka Carabta. qarnigii ka horreeyay islaamka magaaladii Taif waxay ahayd magaalo hodan ah. waxaa deganaa qabiilkii la odhan jiray Thaqiif. qabiilkani wuxuu lahaa meel ay aad u xurmayn jireen. goobtaas waxaa yaalay sanamkii Laata. dadku meel fog ayay uga iman jireen, waxay u safri jireen maalmo badan. markay yimaadaanna waxay u sujuudi jireen sanamka, waxay ka bari jireen caafimaad, waxay ka bari jireen xoolo, waxay ka bari jireen awlaad, iyo wax kastoo ay u baahan yihiin ayay weydiisan jireen sanamkaas la odhan jiray Laata. laakiin xaqiiqadu sidaas ma ahayn. Laata markii horeba ilaah ma ahayn. taariikhyahano badan ayaa sheegay in markii hore uu jiray nin wanaagsan oo dadka xajka imanaya cunto siin jiray. dadku way jeclaayeen. markii uu geeriyooday waxay ka murugoodeen. shaydaanka ayaase ka faa'iidaystay murugadaas. wuxuu dadka ku beeray fikrad khatar ah. markii hore wuxuu ku yidhi, xasuusta ninkan wanaagga badan, kadibna qabrigiisa booqda, kadib dhiga meel gaar ah. sanado badan kadibna dadkii waxay bilaabeen inay caabudaan. subxaanallah, halkii ay ka xasuusan lahaayeen. jiil ayaa soo maray, carruur ayaa dhalatay. kuwii cusbaa ma garanayn xaqiiqda. waxay arkeen waalidkood oo sujuudaya, waxay arkeen awoowayaashood oo baryaya. markaas iyaguna way ku daydeen. sidaas ayay sanamyadu ku noqdeen ilaahyo been ah. qur-aankana wuxuu nooga warramay, marka la weydiiyo maxaa aad u caabudaysaan, waxay ku jawaabaan, waxaan ka dhaxalnay awoowayaashii iyo aabbayaashay. waxaa jiray sanamyo kale oo carabtu aad uga cabsi badnayd. sanamkaas waxaa la odhan jiray Cuzza. qabiilo badan ayaa rumaysnaa in Cuzza uu yahay sanamka ugu awoodda badan carabta. waxay u qali jireen xoolo, waxay u bixin jireen hadiyado waaweyn, waxayna aaminsanaayeen in guul uu siin karo marka la joogo dagaalada. qaybaha xiga waxaan ku soo qaadan doonaa sanamyada qaar ka mid ah sida Manaata iyo kuwa kale. waxaan kaloon eegi doonaa sidee ayaa loo burburiyey sanamyadii aadka u tirada badnaa waqtigii uu islaamku xoogaystay. fadlan channelka subscribe, saar, like na saar, siina share garee. mahadsanid.